dad aynu jeclayn ayaynu weynay, dad kale oo aynan garanaynaa nolosheena ayay ku soo biireen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sanadka 2020ka dhexdiisa waxaa dhacay dhacdooyin la yaab badan, kuwaas oo saameeyey nolosha bani'aadamka, hadday ahaato dhinac dhaqaale iyo hadday ahaato dhinac caafimaadba. Halkaa waxaa ahaaday coronavirus, gadaashiisana waxaa ahaaday dagaalo badan oo lagu hoobto dunida dacaladeeda ka dhacay. Dad badan oo wanaagsana oo khayr ahaa dunidan maanta ma sii saarno, halka qaar kalena ay isguursadeen, qaar kalena ay furiin la rafanayaan. Dad badan oo aynu garanayno oo garabkeenna ahaa ayaa maanta dunida ka baxay. Qaar badan waxay lahaayeen riyooyin qurxoon iyo hadafyo cadcad, waxayna rajeynayeen inay soo gaari doonaan 2021ka. Si kastaba ha ahaatee, malakulmoodka ayaa naqasi ku dhajiyey, aakhirana saasay ku aadeen. Halka awoodda aadamuhu ku faano waxyaabo badan laga bartay, dowlado badan oo sheeganayay inay furayaasha dunida hayaan ayaa daciifnimadoodu soo baxday, halka qaar kale oo qarsoonaana garoonka ay iskeeneen. Sanad kastaaba caqabadihiisu wataa, nolosheennana waxyaabo badan ayaa soo wajahay, kuwaasoo murugo farxad intaba isugu jiraa. Dunidan aan saarannahay qaar badan ayaa ku soo biiray, halka qaar kalena hoygooga dhabtaha ay u hoydeen. Qofna ma oga inta loo soo jiro iyo xilliga la qaban doono. Qaar badan oo inaga midana duruufta ayaa u run sheegtay, kuwo kalena meel sare ayay gaadheen. Qaar badan oo inaga mid ah sanadkan waxay gaadheen horumar wanaagsan, hadday noqoto dhinac aqoon iyo hadday noqoto dhinac adduunyaba, halka qaar kalena ayna wax isbeddel ah nolosha ka samaynin. Halkay fadhiyeen hal sano ka hor ayay weli ururaan. Sanadkan dhexdiisa waxaa ina soo maray waxyaabo badan oon ku faraxnay iyo waxyaabo badan oo inaga oysiiyey. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay kuu rumoomeen riyooyin badan, Rabbiga u mahadnaq. Haddii ay khadaad badan kaa dhaceen, rajooyinkaagii iyo qorshayaashoogiina kaa fashilmeen, weli fursad baad haysataa haddii aaba sii nooshahay. Wixii shalay kaa qaldamayna maanta ayaad bedeli kartaa oo dib u sixi kartaa. Qof kastoo inaga mid ah oo caqligiisu fiican yahay wuxuu maanka ku hayaa in ay tagtay cimrigiisa qayb ka mid ah. Maalinba maalinta ka dambaysa, saacadba saacadda ka sii dambaysa, Rabbiga ayaad u sii dhowaanaysaa. Haddaba ma tahay qof Rabbigii cibaadadiisa ku dadaala? Haddii sanadkan aad cibaadada Rabbiga ka gaabisay, hadda ayaad fursad haysataa. Dunidan aynu arkayno waxaa ka dhacay waxyaabo badan oo halkan lagu soo koobi karin. Sanadkan 2020ka qaar badan ayaa laxadkoogi waayey, halka kuwo kalena sariiraha ay saaran yihiin, dhakhtaradana buuxiyeen. Haddii aad caafimaad qabto, waxba kaama maqna, Rabbiga u shukri. Hadalka ugu dambeeyay aan kaga tagayaa wuxuu yahay, waa cusub ayaa kuu bariyay, isku diyaari inaad noqoto qof cusub. Midda aan kuu sheegayaana waxay tahay, caqabado badan, kufitaan badan ayaa ku sugayaa. Nolosheennu isbeddel ayay u baahan tahay, hadday ahaato in aan ku dadaalno cibaadaadka Rabbigeen iyo hadday ahaataba in aan nafafkeena horumarino.